xisbiga mucaaradka Soomaaliland uu xukuumadda ugu baaqay in tala loo dhan yahay ee kaga qayb gasho wajiga lixaad ee wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Haddaba waxaa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Ismaaciil Cali. مسؤولين كترسل حسبك معارض كودني ومانت وربعين كل هذلي حرنت ده حسبك معارض كودني أيه واحد يسكل الوجه لين وده هذا الله في له إن دحمل الصوماليلان إيه الصومالية إيه الصدق كلنا حول الله عيد مدى يدكفليه قبل كتقدر وعنو غور شركة سيتشرا الدافري حقيقة سياسة داري مهدي بدأ حسبك معارض كودني دكتور محمد فضل وعنو حكومة الصوماليلان وقباقي إن أي tala loo dhan yahay kaga qayb galaan wada hadallada shirkaasu inuu wada tashi qaran oo gudaha ah oo la wada og yahay in ajandihiisu ka soo baxo waxa la filayay oo hore looga hadlay oo in badan laga hadlay oo maanta taagan caburin dadka reer Soomaaliland ay dareemayaan inaan dawladooda ay doorteen iyo madaxdeedu inaanay u awood furnayn una banaaneen una sheegeen waxyaabaha ay ka hadlayaan waxaan u maleynayaa wax ka qarsood noqon kara Somaliland iyo Soomaaliya waxa ka dhaxayn kara way iska cadyiin dastuurka Somaliland way ku qoran tahay dastuurada kalena way ku qoran tahay wax qarsoodiin la sheegi karo oo maanta lala dhuuman karo ama hoos lagu sameyn karo ma jiraan hataa hadii lala tagayo ajenda meesha ajendaha in mistushi marka hore lagu soo gorfeeyo Somaliland oo xisbiyada qaranka loo yeero oo golayaasheeda loo yeero oo salaadiinteeda loo yeero oo bulshada rayidka loo yeero oo gudaha lagu soo goosto dariiq loo yahay jeexan oo kan iyo ka dambeeyaba la og yahay meeshu ku dhamaanayo iyo dawaaqada wax la doonayo wax Soomaaliland dadka doonayaan ayay ahayd in la tago sidoo kale Xasan Xuseen Codyare oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ayaa dhankiisa eedan kulul waxa uu ugu jeediyay wasaaradda arrimaha gudaha hawlgallada ciidamada RRU ka fuliyeen gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco kaasoo ay ku xidheen gudoomiye ku-xigeenkii hore gobolka Togdheer waxa dhibaatooyin badan loo geystay oo la xidhxidhay oo guryahoodii loogu dhacay oo caruurtii saqdii dhexe labadii loo daatay ninkii ahaan nin madaxda sare ee wadani kamid ah oo la yiraahdo guuleed daahir samatar horena u ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer gobolkiisii uu deganaa uu guriga ku lahaa uu caruurtiisa kula noolaa ayaa saqdii dhexe loo daatay sidii dugaaga loo dhacay caruurtii yaryarayd suuxdin bay weli ku jiraan sida TV-gaba oo ay u sheegtay gabadhii dhashay gurigiina la baabiyay lana soo qaaday berbera lagu soo xidhay saldhigeeda maantana sida la sheegayo loo gudbinayo Madheera ninka muwaadinka ah ee madaxda xisbiga kamid ah falka loo geystay baan aad iyo aad u cambaareynaa dhawaaqan kulul ee ka soo yeeray xisbiga mucaaradka wadani ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland daboolka ka qaaday inuu dib u furmi doono toddobaadka soo socda wajigii lixaad ee wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. Mukhtaar Ismaaciil Somsaad Hargeysa.